madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo maalintii saddexaad ka sugan magaala madaxda gobolka bakool ee degmada xudur oo uu kulamo shalduwan laweeladaay qaybo shalduwan ee bulshada magaaladu ka qaabili saraakiil ciidanka xooga dalka oo horkahay taliyaha qaybta 6aad ciidanka xooga dalka jenaraal maxamed sheekh cabdullaahi ciirow madaxweyne laftagareen iyo taliyaha guutada 9aad qaybta 6aad gaashaanle sare cali ibraahim xabad iyo taliyaha qaybta 6aad ciidanka xooga dalka jenaraal maxamed sheekh cabdullaahi ciirow ma isku dhuwansaday warbixin ka qotonta xaaladda ciidanka xooga dalka iyo howlgalladii ku fuliyayaan deegaanada hooskooda degmada xudur ee gobolka bakool madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo saraakiil qaybta 6aad guutada 9aad ee ciidanka xooga dalka kuma hadnagi shaqada adag ee iyo hayaan shacabka ku nool guutaan gobolka bakool maynu safaray antiyo dardar geliyaan howlgallada la kabacsada oo maleeshiyada argagixisada al-shabaab ee diiday anti shacabka reer xudur iyo helaan wadooyin iyo raashinka aan ku gala maynu saraakiil ciidanka kala dardaarmay madaxweynaha antiyo dardar geliyaan sidii ka furo lahaayeen wadooyinka iyo go'doomiyeen maleeshiyaadka al-shabaab taliyaha qaybta 6aad ciidanka xooga dalka jenaraal maxamed sheekh cabdullaahi ciirow iyo kulanka markii dhamaaday kureed warbaahinta dawladda ku warbi waliyaaboogii lungu hadalay waxaa shir iskugu yimid saraakiisha guutada 9aad ciidanka amnisom iyo madaxweynaha koonfur galbeed shir albaabada u xiran yihiin ayay ku qaateen magaalada xudur taas oo looga hadlayay arrimaha amniga gobolka iyo sidii loo dardargelin lahaa howlgallada lagu bacsanayo argagixisada al-shabaab sidaad ogtihiin gobolka bakool wuxuu ku jiray xaalad adag oo ah inay nabadiidku ka gooyeen wadooyinkii isla markaas ay u diideen shacabka inay helaan quutul daruurigii xataa iyo ganacsigii iyo wax walba oo bini aadamku isticmaali lahaa inay ka hor istaageen sidaa daraaddeed waxaa la go'aansaday in la dardargeliyo sidii looga hortagi lahaa nabadiidka shabaab isla markaasna loo furi lahaa wadooyinka gobolka bakool degmooyinka uu ka kooban yahay arrintaas falanqayn dheer kadib waxaa la go'aansaday oo la isku raacay in hawshaas si dardar leh lagu bilaabo shabaabna meel kasta oo uu joogo lagu ugaarsado si shacabka gobolka ku dhaqan ay u helaan amni iyo nolol tan hadda ay ku jiraan mid ka fiican sida aawadeed shacabka gobolka bakool waxaan ugu baaqayaa iyaga oo dhibka mar walba ku dhacayo in ay garab istaagaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si looga adkaado nabadiidka iyaga dhibka ku hayo waxaan rajaynayaa in isbedel weyn laga dareemi doono booqashadii madaxweynaha kadib in xaaladda nololeed ee gobolka waxa iska bedeli doonaan insha Allah aad iyo aad mahadsantihiin madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis laftagareen iyo maalmoon ku sugan magaalada xudur ee gobolka bakool kulamo shalduwan iyo laweeladaay qaybo shalduwan bulshada iyo saraakiil laamo amniga dhamaantii may diiradda la ka saaray kulamada sidii lan furo lahay wadooyinka iyo go'doomiyeen maleeshiyada argagixisada al-shabaab faysal maxamed isaaq TV-ga iyo raadiyaha koonfur galbeed degmada xudur